munaasabad seher sare loo soo agaasimay isla markaasina lagu caleema saarayay suldaanka cusub ee beesha Hayiile Cali Xasan ee Aadan Yunis ayaa ka qabsoontay tuulada Dundumacad oo ka tirsan degmada Awbarre ismaamulka dawlad deegaanka Soomaalida dalka Itoobiya. munaasabadan lagu caleema saarayay Suldaan Mawlid Cumar Faarax suldaanka guud ee beesha Hayiile Cali Xasan ayaa waxa ka soo qayb galay garaadka guud ee beesha Absame iyo qaar ka mida salaadiinta dhaqanka ee dawlad deegaanka Soomaalida ee dalka Itoobiya. sidoo kale waxa iyaguna munaasabadaasi ka soo qayb galay Suldaan Ciise Suldaan Cabdilaahi Suldaan Muuse Suldaan Axmed Suldaan Maxamed Suldaan Cabdi iyo gudoomiyaha degmada Awbarre gudoomiyaha Wajaale ee dhinaca Itoobiya gudoomiyaha Shaadheer iyo qaar ka mida saraakiisha ciidamada New Booliska ee dawlad deegaanka Soomaalida ee dalka Itoobiya. sidoo kale waxa munaasabadan iyaduna ka soo qayb galay qaar ka mid ah madax dhaqameedka gobolada Somaliland kuwaas oo ka kala yimday gobolka Awdal magaalo madaxdiisa Boorama iyo gobolka Gabiley sidoo kale waxa iyaguna ka soo qayb galay madax dhaqameed ka kala yimday tuulooyinka Labageedley Suradley Lafaciise Jaare Dharwanaaje kuwaas oo munaasabadaasi ka jeediyay hadallo kala duwan ilaahayna uga baryay inuu xilka u fudeeyo Suldaan Mawlid Cumar Faarax oo ah suldaanka guud ee beesha Hayiile Cali Xasan. si kastaba ha ahaatee waxa iyaguna munaasabadaasi ka soo qayb galay xubno agaasimayaal oo ka kala socday dawlad deegaanka Soomaalida ee dalka Itoobiya iyo caasimadda Somaliland Hargeysa kuwaas oo ilaahay ka baryay inuu xilka ku asturo suldaanka cusub ee yeelanayso beesha Hayiile Cali Xasan ee Aadan Yunis. Suldaan Mawlid Cumar Faarax ayaa isagoo suldaankii 8aad ee ay yeelato beesha Hayiile Cali Xasan kaasi oo noqonaya suldaankii ugu da'da yaraa ee isla beeshaasi ay yeelato. Khadar Cabdi Cabdilaahi warbaahinta madaxa bannaan degmada Wajaale.